kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada wararka aan idin hayno qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay khasaarihii ka dhashay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen hotelka Xayaad oo weli ay al-shabaab qaarkood ku jiraan waa sidii xaaladda guud waxaan soo gudbin doonaa ciidamada qaybahooda kala duwan oo bambaanooyin ku hareereeyay hotelka sidoo kalena dhulka dhigay dhammaanba darbiyadii uu ka koobnaa hotelka Xayaad sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa hubiyaal xalay ku soo dhacay degmada Xamar Jajab oo dhibaateeyay ilaa iyo 20 qofood dhaawacna gaarsiiyay dad aad u badan ayaan soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale idin haynaa ilaa iyo intee ayuu gaarsiisan yahay khasaaraha baaxadda leh ee uu geystay weerarkii ay al-shabaab xalay ku qaadeen hotelka Xayaad iyadoo oo aan idin soo gudbin doono mas'uuliyiinta iyo shakhsiyaadka saameynta leh ee qaraxaasi ku waxyeeloobay balse inta aan u gudagelin daawadayaal waxaan idin ka codsanaynaa marka koowaad inaad muuqaalka like noo saartaan adiga oo share gareynaya wixii aragtidiina ah qaybaha fariimaha ayaad noogu riibi kartaan in al-shabaab oo 7 xubnood ka kooban sidoo kalena wata qoryo AK47 ugu weyn yahay in muddo ka badan 8 saacadood laga bixin waayo hotel ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo ay ku sugan yihiin nooc kasta oo kamid ah ciidamada dawladda Soomaaliya sidee bay kula muuqataa maxayse ahayd awoodii dheeraadka ah ee ay la soo bixeen ciidamadii ku guda jiray weerarka ee dhinaca al-shabaab ee xalay weeraray hotelka Xayaad aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa la helayaa in xilligan rag ka tirsan al-shabaab ay gudaha ugu jiraan inkastoo dawladda ay sheegtay in la soo afjaray saakay subaxnimadii waxaase weli la maqlayaa rasaas goos ah oo aan la ogeyn cidda isweydaarsanaysa kadib muddo 14 saacadood oo dagaal toos ah uu ka socday halkaas waxyaabaha la amaani karo ay ciidamada dawladdu sameeyeen ayaa qayb ka ah inay soo badbaadiyeen dad shacab ah oo ku go'doonsanaa gudaha hotelka ka hor inta aysan darbiyada hotelka oo dhan ku wareejin bambaanooyin ay ku qarxiyeen darbiyadii ugu muhiimsanaa ee hotelkan ay dhulka ku dhigeen kooxda al-shabaab ayaa qaraxyo waaweyn ku galay hotelka maqribnimadii xalay waxa ay nasaqdii dhexe isugu tageen dabaqa sare ee hotelka iyaga oo dagaal la galay ciidamada dawladda ee gudaha hotelka ku jira waa dabcan dagaalka kula galay waxaana qayb ka ahaa ciidamada dagaalamayay ciidamada gaarka ah ee Alpha Group ee loogu talagalay xasaradaha daran inay ka qayb galaan sidoo kalena ay soo gabagabeeyaan xeeladaha cusub ee al-shabaab adeegsadeen weerarkan ay isticmaaleen waxaa kamid ahaa inay caagag laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa dhigeen gudaha hotelka iyada oo la sheegay inay qarxinayeen markii loo soo dhawaadaba khasaaraha weerarkan oo ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca Muqdisho intii markale dib loogu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu noqonayaa mid siyaabooyin kala duwan ay dadku uga hadleen waxaa ku geeriyooday ilaa iyo 15 qofood oo ay ka mid yihiin ganacsato dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan dawladda dadka ku dhaawacmay waxaa kamid ahaa sargaal ciidan oo waxaana howlgalka uu noqday mid kamid ah kuwii ugu waqtiga dheeraa ee al-shabaab ay ku qaadaan hoteelada Muqdisho ku yaala sanado kadib waxaana hadda soconaya dadaalada lagu caawinayo dadkii dhaawacyada soo gaareen iyada oo dhanka kale booliiska Soomaaliya ay sheegeen inay toogteen ilaa iyo 7 xubnood oo ka tirsanaa raggii weerarka soo qaaday sidoo kalena xaaladdu ay xilligan degan tahay waxyaabaha la yaab kale ee hotelka xalay ka dhacay waxaa kamid ahaa in 3 caruur ah iyo hooyadood ay ku kala dhumeen gudaha hotelka hooyadiina la soo badbaadiyay laakiin caruurtii la waayay inkastoo markii dambe ciidamada dadaal ay sameeyeen laga soo dhaxbixiyay masquul kamid ah guryaha uu hotelku ka kooban yahay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada Alpha Group loo yaqaan iyo ciidamada kale ee Haram Cad ay gudaha u galeen hotelka qaar kamid ah qolalkiisa waxayna ciidamadu soo afjareen howlgalka iyagoo intaysan soo afjarin ka horna ku dhinacwaday howlgal kale oo ah mid ay dadka ku badbaadinayeen ciidamada ayaa ku guuleystay inay soo badbaadiyaan dad badan oo ku go'doonsanaa qaybo kamid ah dhismaha hotelka dadka la soo badbaadiyay waxaa ku jira dad dhaawacyo waaweyn qaba khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana laga soo tabinayaa gudaha hotelka al-shabaab ayaa dhowr jeer weerar ka geystay hoteelada ku yaala aaga lambar 4 ee airportka waxaana ilaa iyo weli laga baaqsan lahayahay sidii weeraradaas loogu hortagi lahaa dhanka kale warar dheeraad ah ayaa dabcan hadda aan in la hadlay ka soo baxaya hotelka waxaana weerarkii qaraxyada ku bilowday ismiidaaminta ay dawladda Soomaaliya sheegtay inay soo gabagabaysay waxaana sidoo kale jira dadka dhaawacmay iyo xogihii ugu dambeeyay ee la helay waxaa qayb ka noqonaya taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Muxudiin Warbac oo ka mid noqday dadka ay dhaawacyada soo gaareen taliyaha hay'adda nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa la sheegay in uu dhaawac ka soo gaaray dhinaca lugta waxaana dhaawaciisa lagula tacaalayaa mid kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho weerarkan lagu qaaday hotelka Xayaad ayaa sidoo kale
waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyada oo dadkii ku dhaawacmay loo qaaday qaybaha kala duwan ee isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. haddaba su-aasha halkaas ka dhalanaysa ayaa waxay tahay muddo ku siman ilaa iyo 10 saacadood maadaama weerarku socday 14 saacadood in ka badan, sidee bay ku suurta gashay in rag awood intaas la eg ay magaalada bartamaheeda ka geystaan weerarkan? waxyaabaha la yaabka leh ee xalay la arkayna waxaa qayb ka ahaa inay caaga ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa sida aad sawirada ka aragtaan, iyaga oo caagagiina ku soo duubay koolada korontada loo isticmaalo. kadibna waxa ay dhigeen iridaha hoteelka iyo jaranjarooyinka, iyada oo markasta oo loo soo dhawaado mid ka mid ah bambooyinka ay wateen ay qarxinayeen, taasoo aad u sii adkaysay inay xaaladdu sahlanaato ama ciidamada dowladda ay u fududaato inay gudaha u galaan. wararka ku soo kordha qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Xayaad waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena kale inta aan tabintan ku jirnaa. wixii soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. dhanka kale haddii aan eegno, waxaa xalay sidoo kale dhaawac iyo dhibaato ka soo gaartay 20 qofood weerar u muuqday hubiyaal kaas oo lagu garaacay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana wararka hadda laga helay halkaas ay qayb ka yihiin in ku dhawaad 20 qofood ay ku dhaawacmeen hubiyaal ku dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. waxaase dadka dhaawacmay ka mid ah ayaa la yiri qoys aroos ahaa oo mar dhow uun aqal galay. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay tiro hubiyaal ah oo xalay ku dhacay xaafado ku yaala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, kuwaas oo ay geysteen khasaaro isugu jira dhaawacyo. hubiyaashii oo gaarayay ilaa iyo 5 madfac ayaa lagu soo waramayaa in lagu garaacay ilaa iyo degmada Xamar Jajab qaybaheeda kala duwan, waxaana ku dhaawacmay 20 qofood oo isugu jira dad shacab ah. dadka dhaawacmay waxaa ka mid ahaa dad qoys ah oo dhowaan uun aqal galay, waxaana ay ahaayeen aroos cusub, laakiin ninkii iyo xaaskiisii ayaa goobta ku dhaawacmay iyada oo dhaawaca ninku uu aad u daran yahay. sidoo kale waxaa dadka dhaawacmay ka mid ahaa caruur iyo hooyadood oo iyaguna dhaawac uu soo gaaray. isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaana loo qaaday xaaladooda caafimaad. ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliiska Soomaaliya oo xalay si weyn ugu mashquulsanaa weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen gudaha hoteelka Xayaad. weerarkan ayaa loo adeegsaday hubiyaal, waxaana uu ku soo aadayaa iyada oo ay weli socdaan howlgallo lagu soo afjarayo weerarka tooska ah ee ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho, kaasoo xalay fiidkii bilowday, waxaana ilaa iyo hadda la maqli karaa rasaas teel ah. booliiska Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inay qarxinayaan bambooyin ay Al-Shabaab gudaha hoteelka dhigeen iyo miinooyin, taas oo ay markii hore ugu talagaleen markii ciidamada dowladda u soo dhawaadaan in ay qarxiyaan. wararka ugu dambeeya ee halkaas laga helo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa daqiiqad hadduu Allah awood u raali ka noqdo. tabinteennii subax ayaana saaxiibayaal intaas ku soo gabagabaynaynaa. nabadgelyo.